sidoo kale diyaaradaas saarnaa qaar ka mid ah dad Soomaaliyeed oo qabay dhaawacyo kala gedisan kuwaasoo muddo 6 bilood lagu daweynayay dalka Sacuudiga kadib markii ay ku dhaawacmeen qaraxyo ka dhacay magaalada Muqdisho muddo haatan laga joogo ilaa dhowr bilood. Maxamed Cabdalla Almaajid oo ka mid ah wafdigii ka socday dalka Sacuudiga oo si gaar ah ula hadlay warbaahinta qaranka ayaa faahfaahin ka bixiyay deeqdaas dawada ah. wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka ee xukuumadda Soomaaliya ahna kusimaha wasiirka gargaarka ee xukuumadda Soomaaliya Cilmi Cumar ayaa u mahad celiyay dowladda Sacuudiga iyo sida ay u garab taagan tahay dowladda Soomaaliya tan iyo markii uu dhacay qaraxii lagu hoobtay 14 bishii Oktoobar aynu soo dhaafnay. waxaa sii kordhayay gurmadka kala duwan oo ka kala imaanaya wadamada caalamka. Sacuudiguna waa mid ka mid ah wadamadaas, waxa uuna ka mid yahay Sacuudigu dowladaha sida gaarka ah u taageera dowladda Soomaaliya. waxa uuna Sacuudigu si gaar ah dowladda Soomaaliya uga taageeraa dhanka gargaarka.